mogtahay inay kuwan yihiin siyaabaha ugu layaabka badan ee dalalka qaar ugu dabaaldegaan sanadka cusub. kow, Spain waxay cunaan 12 xabo cinaba, waxayna 12 xabo ku cunaan 12 ilbiriqsi ugu dambaysa sanadkaas. waxayna aaminsan yihiin in xabad kasta ay soo jeedinayso nasiibka wanaagsan, waana haddii aad ku cunto waqtiga loogu talagalay. 2, Japan waxay sanadka cusub ugu dabaaldegaan qaabad u fiican, kuwaasoo sanadka cusub la dabaaldega qaraabadooda iyo sidoo kale asxaabtooda, waxayna habeenkaasoo dhan joogaan dibadda si ay u daawadaan rashka la ridayo sanadka cusub. 3, Brazil waxay sanadka cusub ku dabaaldegaan xeebaha, waxayna xidhaan dhar wada cad si ay u soo jiitaan nabadda, waxayna 7 jeer ku boodboodaan hirarka badda si uu nasiibkoodu u fiicnaado. 4, Colombia waxay saqda dhexe dibadda u soo baxaan iyagoo sita shandadaha safarkoo maran, waxayna aaminsan yihiin in arrinkan uu soo jiidanayo inay u safraan dalka dibaddiisa. 5, Dominican Republic waxay sanadka cusub daaqadaha ka daadiyaan biyo aad u badan, kuwaasoo sheegay inay sidan aqalka kaga saaraan rooxaanta xunxun, waxayna sidoo kale sheegeen inay arrinkan u samaynayaan si uu sanadka cusub ugu soo galo iyagoo hawl qabanaya. 6, Italy amba Talyaaniga waxay jajabiyaan weelasha sanad kaste, kuwaasoo sheegay inay aqalka ka saarayaan tamarta xun amba negative energy-ga, waxayna sheegeen in markaste oo aad weel jajabiso inuu sii badanayo nasiibkaaga wanaagsani. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, midkee xoog kaaga yaabiyey? sidoo kale marka la gaadho sanadka cusub, adigu sidee baad ugu dabaaldegtaa? qaybta commentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saarana aad subscribe dhahdo.